waxaad sheegtay dowladda dariska ah inaad ka wada hadasheen inay idin garnaqaan dalka Soomaaliya laakiin dadku intii u muuqatay marka laga hadlo labada dowladood warmurteed ka soo baxay waxay muddo aad u kala duwanaa Itoobiya kale waxay toos u sheegtay inay jamhuuriyad yihiin Jabuuti warmurteedka waxa ka muuqday inay idin arkaan qayb ka mid ah Soomaaliya arrintaas adiga ku muuqata arabka marka loo eego sharciga guud dowladdu waxay u arkaan Soomaaliya ka tirsan wali sharciga ku weynaa kala bixin dowladaha iyo dadku marka hadayaan waxay raacaan waxa la yiraahdo sharciga caalamka ama dowladda dadka uurkooda waxa ku jira waxay maagan yihiin iyo waxa sharcigu farayaan waa kala jaad labadaba waxay noo aqoonsan yihiin inayna wali ahayn dal ictiraafsan yahay inaga u halgabanay ictiraafka laakiin sharciga midna waxa hor yaala dowladda Soomaaliya qura ictiraafsan marka labaduba halka waxay u baahan yihiin inaynu ka hawlgalno inaynu ictiraafaan qaran oo garta qaataan waana wadada socono كل جودة بيضة كانت في فرع إثيوبيا وكل حافظنا عليه كل شيء جاي أظن هذا شيء قضية الشمال سياسية وامر الدولة أمريكا يمكن يرسم شوية على يودا يورديل أريما هذا فاهم كسبت ما واحد كونان سهم من الذي كرنا فوق مش الشروط دينا شوية على الله طلب لما رنا سياسة الشمال تجودها واحد كهذا الشيء نظام حسبيضة واحد شيء حسب الوطني إن شوية راس إنسان يعني حسب الوطني طبعاً إن حلقي الله كيف وحكينا كيف نحسب حسب حاجة كارهان أتكو إذن شتين إنه تاجروا سبلوين حسب الوطني يبدأ كمان تاجروا مسيح نبغى حسطان إنه يسبلوين كأهرين طبعاً تدوم الحين يلفت بالفافين كبير وحنو دورنا إذا نشارك كمبرير وكبرورة كروا لهم يلا مرينات مركا درك شاركنا إيجاد إيو European Union waa la socon doona laakiin waxaan u baahanahay inaynu garteeno meel u mar markii aan rureen halka u markaaba noqotay waxaan isku haysanaa Soomaaliya la ictiraafsiyada dawladda tiriye waana waxaan ku doodaynaa ma aha waanu ka soo goonay Soomaaliya xeerka AU waxa lagu wada joogaa u dhigaya xadadka Afrika ha ahaadee kuwa isticmaalka waxaan ku doodaynaa qolada Muqdisho gardaran oo xeerka Afrika jabinaysa oo anaga ku joogna xadadkii استعمار كتير وحنور القربال هي مش الثالثة ثلاثة سنة مرة تقولين مرة كل مية يعني وكان ميك عرّا ما أنا أوران بيران أم بعض يضرب بقى قريب كم الصومالي لان بقى ريحمة حاشا تسوى الدستورية وحروان هذا الشراء واحد شراء سياسيين أشخاص أو كلهم لحمر أو تري أو كسر مغوي حزب البروي تجاه marka kamida ashqaasta waadur iyo waxay duriyeen laakiin xeerka dimuqraadiyaddu waxa weeye mardu shirka dhamaaday oo xisbiyadu soo haneeyeen kambeynkaas uu lahaa annagu imka ummadda wadani iyo madaxdooda niman Soomaaliland darisa oo taariikh wanaagsan ku leh oo halgalkii qaybta ugu fiican ku leh oo muddo kala oo dalka qaybtooda la aragna nin dafir ma yata laakiin shakhsi hadduu meel tagaan wadan Britain xamarta ama aan dambi galada shakhsi waa la qaadi karaa marka haddii shakhsi oo la soo qaado qaran lama soo qaadin cidna lama soo qaadin marka waxaan arkaa inay gaftahay inuu shakhsi uu reer ku galgasho waa qalad taagan hadda waa tukarraq waana dhici jirtay oo Puntland iyo Somaliland way in badan bay qoryo soo qaateen laakiin markay meel gaadho madaxweynayaashii Puntland iyo madaxweynayaashii Somaliland baa wada hadli jiray waana la joojin jiray colaadda talaabada adigu ma qaado ma wada xidhiidha marna Cabdiweli ma waxaase in badan oo kala dam qaaday qoladan hay'ado badan iyo ambassador badan baa isaga la hadlaar yaraha waxaan isku afran laanahay anigu waxaan taaganahay Cabdiweli muxuu ka rabaa tukarraq anigu xadkii Soomaaliland baan taaganahay oo 7 kilomitir hadhay isna wuxuu taagan yahay maxaa tukarraq loo yimi qoladan dhexaad saarinta way fahmi kari waayeen waxaan isku haysanaa waayo anigu kabada tukarraq xadkii baan ka hadlaa marka uu sabab aan anigu hadli karaa oo deema taalo in badan baa loo kala dab qaado hadal telefoon qolo walba ila soo hay'ad waxa ugu dambeeyay hay'adan maxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Umar ayaa laba goor iyo ula soo hadlay labada goor waxa horta ha ogolaado inay Soomaaliya jirto xadkii Soomaaliya isugu ku jiro oo 7 kilomitir hadhay isna wuxuu taagan yahay tukarraq waa Puntland markaa baan ku hadal u joogo doorashadii kadib su'aasha si kala aan dhigay dadka badan baa aaminsan in xilligan lagu kala qaybsan yahay oo bulshadu lagu kala jabsan tahay amba jeeganaha lagu sheego amba giraanaha lagu sheego
madaxweynaha ay dadkaas leeyihiin miyaan inuu ka howlgalaa in arrintaasi isla markaana wax ka qabto bulshada la isku soo dhaweeyo talabaad madaxweynaha Soomaaliya waxa tilmaamay inaad qofka telefoonka wada hadasheen wataana dadka hubiya sida horta telefoonka war oo kala dab qaado anagu mana hawlo waxa weeyaan hablo waxa suulaya adna waxa saadada waana tii arrinka su'aasha ka jawaabado haddadku wax wada markay ku heshiiyaan nuxurka laga wada hadlayo nimanka muqdisho jooga ma aqoonsana inay Soomaaliya tahay qaran jira oo xadkii mustaqbalka leh annagu waxaan arkaa nin dalkiisa gudihiisa lagu fargeliyo leh dhaqaaq marka cidda noo kala dab qaadaysa laba qolob la hadlaya waxa lagu heshiin lahayo qolada ajnabiga mar walba waxay taagaysaa ee Soomaaliya sharci mid ka dhigaya ee midkii wanagi burburinay diidmo qaran kala dhasay kana baraadka hada arka weey marka wari waa jira dabaqad qolada isna wuxuu heshiis ku sheegay farmaajo ama aan laba qolob ballan qaaday oo kiit ninkii UN ka dhaxay aan u ballan qaaday in aan wada hadalno oo nala dhaxaadiyo oo qadiyada Soomaaliya ka dhaxaysa laga wada hadlo qodobka isna wala keenay ana diyaar baan lahay qaraar baa haddana cid walba xalay anagu wada hadal baan xal ku doonayna Soomaaliya hadal bay xal ku doonaysa kaasaan taagana nina ku duuli mayno ninkiina soo weerarna waxa ay Allah ka alfaabay noqon doonta qodobka kala qashanta horta anigu waxaan ka qabanaya waxaan wada hadlo waa xisaabta reer ka tagin xisaabeyno xisaabta mucaaradka markaanu isqabano dulqaad iyo garowshiya xalka anaba axsaabtana wari intay yimaadeen labada xisbi ama publican ama midaha ay soo mareen ama toos intay yimaadeen imay oran waxayo xasal laga yeer ka tabanaa waxa bedel dariiq baan madaxa dhigay laakiin ashxaasta suuqa ka wada hadlaysa iyo kuwaasi anigu tay uga jawaabi karo anigu qaranka hore ka masuulay qaranka maanta dhex baan taagay kulmiyana ma wadana ma qaranka hore kitaaba gacanta la saaray dhex baan taagay cidda aan wada hadli karnaa siyaasi wax ka hadli karnaa waa xisaabta qaranka marka xisaabtii qaranka ee mucaaradka ahayd iyaga tirada sugay haday dhaliilayaan haday la garnaqsanayaan haday way tilmaamayaan inta waa diyaar baan marka waxa kala qaybsanaanta ashqaas iyo kooxo iyo reeraya halka way tiraysaa warigeedba dadku waxbay isku kala hayaan labada dukaanka isku xigaysa iyo labada reer beer ku marmayo labada barkad ku marmayo oo laba wado ku taas waa nolosha caadiga wara waxay dawladdu sameysay waa in hadii tir xal u helaa marka midna waa maamul waa administrative midna waa political wixii political xisaabtahay maamulka wasaaradda dakhliga oo dal isku qabsaday ceel baa isku qabsaday laba nin baa isku dhifay maxkamada waa maamul marka political issue ay xisaabtii qaranku ila timid oo ummaddu ku qaybsatay hadaa haysta ii soo sheeg midina kuma arag toosna xisaabtii kuma iman ay isla garatay in warbaahinta madaxa bannaan aan xog la siinin warbaahinta dowladda oo keliya mas-uuliyiinta la hadasho arrintaasina dastuurka Soomaaliland iyo xeerka saxaafadda koornaa ma ogaan karnaa madaxweyne aragtida adag ku saabsan midda kale Soomaaliland xukuumaddii ka horeysay madaxweyne Silaayo waxay heshiis la gashay imaaraadka oo saldhigga barbaaraysan wararka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi inay ka baxdaan ama ka baxaysaa ta hore wuxuu sharcigu dhigayo istoor ama xeer ay ma raacayna annagoona lagu amray oo loo doorto loo xil saaray inaan sharciga ilaaliyo ka dhifmin marka wixii sharcigu dhigo iyo wixii aan inagu koor ku heshiino ayaan ku socon doonaa wixii aan kala tirsanayno annagu saaq u dhigtay ma qabno wasiirkuna taa xukuumadda iyo annagu waxaan qabnaa inaan saxaafadda si wanaagsan uga shaqeyno saxaafadda xukuumadda marka ay gaar tahay wixii aan sirna anaga inoo taala waxaanu bixinaa halkeenu geynaa laakiin saxaafaddu waa sharci anaga u baahan saxaafadaan anaga ba dhibeynayna xataa dhaliishiinu waa faa'iido muraadda xagga dambe ninka ku saxaawo oo tolnimada waryahoy shaarka xidho markaa jeexan yadaad tirahdaan waa ogolay mucaarida waa soo ahaan jiray inta saxaafadda waa naqaana ha nooga biqitaa waa safarayna haddaynu safarayna waa isla eegi doonaa tasaldhigga militariga ee la siiyey imaaraadka dowladda horgashay waa sharci kamaanaa bixin awood ka bixin dambe waa jira waxa baasgareeyay baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliland baa tuul seer ku baasgareeyay madaxweyne kama bixi karo dii laga baxay baarlamaanka waa loo noqonaya marka waa sharci baarlamaanku saxay annaguna waanu ka baxaynaa iyo kamaana keena cabasho mid baanu salaana baarlamaanku wuxuu baasgareeyay qodobo waaweyn tirar
heshiis dhintayna oo tiirkaasi saa iyo saa loo macneeyo lama gaarin annagu carabta waxaanu ka rabnaa la galnay tiirarkaa baarlamaanku baaskareeyey aanu furfuro waa intaa taana xaq baan u lehay marka waxaan ku jiraa inaanu furfuro tiirarkii uu baarlamaanku saxeexay masalan oo odhanaya baarlamaanku waddan la dhisaya kordoorka ojaaliya iyo berbera oo da intee leeg maxay yeelanaysaa ila waddadu 100 nooc oo waddo noqon kartaa soo maha iyo tiirarkii ay gudbiyeen wixii noo dhan baan doonayna inaanu dib u fasirno oo dee aanu heshiis ka galno dabcan nin waliba dambulayda waa la isriixaya boroskaasaan ku jiraa waana hawl qaran waana transparent bay ahaanaysaa qaranka halka loo maraya taas sidaad og tahay madaxweynihii ka horreeyey markuu guddi u saarayo arrimaha sixir bararka ee somalilan aafeeyey wuxuu u xulan jiray wasiirada golihiisa wasiirada adiguna sidoo kale waxaad la falatay golihii wasiirada walow ku jiro guddoomiyaha baanka dhexe bal ka waran arrintaas kalsooni intee leeg baad ku qabtaa inay waddo saxa oo ay kasoo talabixin saxa ay kugu keeni karaan maadaama golaha wasiirada aanay walow haynin arrimaha ka dhexeeya suuqa oo ay kaga habboonaayeen golaha iyo wakiilada uma guurtidii oo arrimahaas ay kaga habboonaayeen mid aan isla garanno guurtidii iyo shacibkii iyo dadkii waxaa loo dhibay hawsha fulinta waa xukuumadda baarlamaanku ku daba jooga lama wadaaga hawsha fulinta waxay fuliyeen buu jeegalay oon kuu saxaya halkaa kalsoonina midda kulama qabo horta oo yar waa kala duwanna wasiirada suuqa iyo sideena markuu shaqeeya annaga kulama qabo waa xogaan marka hore aqoon buu leeyahay dadkan waxaa lagu qoray shaqadan ay hayaan wasaaradaha ragga maaliyadda haya ama ganacsiga haya waa shaqo ay akaademikali diyaar u yihiin ay soo barteen ka soo baxeen dad magaalada jooga oo waay aragana waa u haay fulin baan la rabaa annaga xukuumadda waxaa wax ka qabtaa la leeyahay ka soo tala bixi lama odhan soo darsa lama odhan ka tala bixintii ciddii looga maarmi waayo aqoon ahaan waayo arag ahaan inta way la kaashanayaan tusaale iminka markii loo dhiibay iyagoo ay arrintii ku jireen si lacageed ciddii koowaad la tashada waxaa jaamacadda hargeysa ragga waa aqoon badan way ka gudbeen waxay u tahay businessmanki dadkii dhaqaalahayay inagu iminka waxaan nahay dad private-ka xoojiyey markaa dhaqaalihii dowladdu ahaan lahayd waxaa haya ganacsada labadu waana isla jaan qaada war siciir bararkan shirkadiina socon maayna waa de u baabiinaya qaray dowladdiina dhismayso hawsheedina geliyood mayso qofkii caadiga ahana uu bakteeya saddexdaa negative u leeyahy business manka weyn sicir bararka khasaaro ku haya qarankana hawshiisa ma qabsanaya uu kacaya qofkii caadiga hasiiskana uu dhimanaya wuxuu waaya wax cuno wada saddexdaa dhibateen waxaa la yidhaha yaa mas-uuliyadda koowaad leh xukuumaddu waa inay iyadu dhaqaaqdaa isu wada keento dadkii facilitation waan gaadhay marka ciddii aqoonta ay u baahdeen way kaabeen jaamacadda hargeysa iyo jaamacad kale wixii aqoonyahan loo bidayo rag kale aa joogo oo baaranka adduunka ay caalamka 20 dal dhaqaaladood bur ka soo shaqeeyey oo waayar ugu leh oo meel fog weyn cismaan baa ka mid ah sheekh salayaan baa ka mid ah business mankina shirkadihii ay khuseynayso dhan waa lagala hadlay mid ay technology u saamaysan siyaasaadka oo kale mid ay u sarreefayso xawaalada kale sida dahabshiir oo kale kuwa kale oo ku lug leh xataa waxaa la gaaray dadka suuqa gidaarada ku sarreefa lacag waayo waxa taladu waa baadiyo cid haysa lama yaqaano waxay u raageen waa in intaasoo dhan xal keentaa aynaan haddana hadhowta daba dhicin weli waa idin sheegaya culayska hore buu xog soo ruray qaadka kuwa factories badan baa jira 1 2 3 way jira dhibaatooyin badan saamay laakiin waxa lacagtan kaashka ah habeen walba aan bixino oo dee aan kooda mas'uul nahay qaadkoona wada cunaay qolada ka shaqeyso qurma saarna dhammaanteen waan walaana inaga lacag dirayna nin waliba shil ku jeeb ku haya xad ka talaabinaya marka hawsha waxay la tahay dadkaas waa dadkii hogaaminayay haddaad adiga laftaadu aqoonayso wax fikradaha xal oo mucjisaad inoo haysana waa u baahannahay arrimaha kuwada Soomaaliya ku jirta maadaama ay ka shaqeyso nabadeynta ama xiriirka Itoobiya in ciidamada Turkiga ay loo soo raro arrimaha wada hadal ugu sameeyo maya Itoobiya iyo Djibouti bidna kalmaana maartay nalaba soo qaaday arrinta anaguna labana soo qaadin waxaana filayaa curfiga caalamka madaxweynaha martida u tahay hawlaha gudaha internalkaaga aad ma fargeliyo
أنا ويتي بدي أرتدي مفرقين يعني أرتدي فرقين وحلا كحاجة مفرقين دي اللي هو ماشي هذول سؤالك هو قدر يسوي هاي سؤالك ده وين حليسته حتى أنا أقول حب هلا هنا والله هو حسن هايستنا ده ما أنا أقول وايو مارك هنا بتاعنا عيد قيشن لما تين السؤالات بيننا وحن نسكوا عزينا هو يينا عيدكم حد قبي يينا كدولي يينا بلا أبور دجال أسكال هلا أنت أول تقول أحسن السؤال ده لكن كذا ما شفتيهم كسوة الرية يو حنا هذا رادو قلنتي حالك قدراي نقضته ورجينا مدبا تاريخ هذا قرايدكم سومالان ورجع هذا كسوة بيا كمان هاي سووا تشوب منغتها ما أنت روح على ورحمة إن أنا أدرس كل دروبني أنا كلام ما هل هذه